بسم الله الرحمن الرحيم مقروا لي السلام الأمان من الوالدين مركز إذا وحربين أن كان الله برنامج ولاده نوعية ضدك يتهنك ضدك دبلنا إحنا نزلنا هنا توقف بلا أدنى واحد كل حد جرتاته وأنا لقمة مرمان هنا فأنتو ضدك maxay yeelay maadaama aad ku dhex jirto dadka waxaan qurux badan dadka aad la nooshahay meesha aad ku nooshahay inaad fahankaysato waxaan maqalnaa mararka qaar ama aan aragnaa dad leh anuu hebel ma fahmin dadka ma fahmin qofka waan ku khaldamay dabadeed maanta waxaan rabnaa inaan ka hadalno barnaamij la yiraahdo noocyada dadka waxaad ogaataa inay jiraan 6 nooc oo dadka kamid ah lana raba inaad dadka aad fahanto koow waxa weeyaan dadku nooca ugu horeeya waa nooc gorgorka oo kale waxaan ognahay shimbirka gorgorka inuu yahay xayawaan kamid ah xayawaanada dabadeed waxaan muhiimsan inaan tusaale aan ugu soo qaadanaa xayawaan waxa weeyaan in aan kaga dayanaa xayawaanka heybada uu ilaahay siiyay dadku waxa ku jira dad sida nooca gorgorka oo kale gorgorka waxa lagu gartaa laba nooc oo uu leeyahay ama laba awoodood uu leeyahay awoodda koowaad waxa weeyaan aragtida dheer ee fog midda labaad waxa weeyaan awood waxaad arkaysaa inta soo fiid asoo samada u jira in uu gorgorka uu soo arkaa shay aad u yar ee dhulka yaal dabadeedna uu ku qaataa si awood leh waxaad arkaysaa dadka qaar ee ku jira qof aragti fog leh ee ka hadlaya ama ka dhahaya mustaqbalku waxa sameyn doona waxa waxaan qaban doonaa waxa sidaa darteed markuu ku sheekeenayo ama aad la joogto waxaad arkaysaa in ay qofkaas ka muuqato awoodii uu shayga uu ku gaari lahaa mustaqbalka sidoo kale ayadana waxaa jirta nooc diinkii oo kale waxaad arkaysaa qof nolosha in badan ku dhex jira haddana mararka qaar aan meeshiisa aan dhaafin Soomaalida waxay adeegsataa oraah dhayso diin daa ogida adigu ma diinkii daashata علشان ده ديك waxaan ognahay inuu yahay xayawaan aad u gurgurta aad u socda qofkii waxaad arkaysaa wuxuu aaminsan yahay nolosha inay iska tahay wax qeyrin caadi wixii iska dhacaan ay iska imaadaan wuxuu ku leeyahay mararka qaar de way iska qabsoomi doonaan ama way iska imaan doonaan ama waxa waa la gaari doonaa dabadeed qofkaas waxaad arkaysaa inuu yahay dib u socod dib u guurid 40 sano ka hor meeshuu fadhiyo uu weli fadhiyaa waa waxa leenahay qofka waa nooc diinki oo kale hadaa aad ku farxirata ama aad raacdaa oo adigu qofka u baad noqonaysa nooca labaad waa nooc sida geela oo kale waxaan ognahay geela inuu yahay xayawaan waxtar leh oo maalin aan lagu qasaarin hilib ka heshiya xoolo ka hilib ka heshiya xoog ka heshiya marka qaar waxaad arkaysaa qof kale inuu hilib geeli ii joogay waan qashin ama waxaad arkaysaa geeli ii joogay waan ku guuro oo meel kale aan ku dagay dabadeed dadku waxa ku jira nooc sida geeli oo kale la joogistiisa ay faa'iido tahay xoog ka heshiya xoolo ka heshiya xikmad ka heshiya in aad qofkaas la joogtaa mar walba uu ku faa'iido maalin aad ku qasaaraysaa ma jiro dabadeed dadka waxa wanaagsan in qofka ceenka oo kale aad la saaxiibtaa aad la xiriirtaa aadna ka barataa bulshada uu ku dhex jiro waxa kale oo asna jira nooc sida dixsiga oo kale waxaan ognahay in dixsiga uu ka mid yahay xayawaanada qaar waliga ma aragtay dixsi ku dhex nool meel cosmetics oo carfaysa may waxaad arkaysaa dixsiga mar walba inuu ku nool yahay sida suulida oo kale iyo meelaha bulaacadaha oo kale wasaq ah dabadeed waxaad arkaysaa maanta adigoo isku labisan isku quruxsan oo iska wacan oo magaaladaas iska marayo qof baad u imaanaysaa aad la sheekaysanaysaa dabadeed wuxuu ku leeyahay sidoo ku eegayay adiga uu ku fiirinayo in uu xumaantaada uu arko dabadeed wuxuu ku leeyahay inuu shaatiga sidata waxa uu ku yaala eeg meeshan sidaan ay ka tahay muuqaalkaaga kale uma jeedo carafta ka soo baxayso uma jeedo dharkaada xirantaa uma jeedo sidaad u labisantaa uma jeedo maanta sidaad u quruxsantaa uma jeedo dabadeed kaliya waxa uu ku mashquulaya dhibicda madow ee shaatiga ku taalo ama xumaanta dixsiga eeg markuu sidaa kugu dul wareego maanta dhan kugu dul wareego wuxuu raadinayaa meel boog ah ama nabar ah meeshaas uu ku dagaya waay uu korkaaga qaybtayda kale ama dhinacyadaada quruxsan uu arki laayay dixsiga qofka ceenka oo kale waa qof xumaantaada u raadiya ma ahan qof wanaagaaga iyo meelaha aad ku wacantaa raadiya dabadeed ninka ceenka waxa uu wanaagsan inaad barato aad ka fogaato nooca kale waxa weeyaan maska waxaan ognahay maska inuu sitaa suntaas oo mararka qaar ku waxyeeleynaysa xataa ku sababaysa inaad geeriyoto aad dhimato dabadeed eeg qofkaas adigoo maanta faraxsan ee qalin jibiyay ama horumar gaaray ama wax qabsatay ayuu sidoo ugu sheekeynaysa aad u leedahay waxaan baan gaaray waxaan baan qabtay halka baan ka dhacay waxaan baan sameeyay wuxuu ku leeyahay laa ilaaha illa allah bal eeg waxaas ku faanaysa adigu waliga sida un baad tahay wad gaabanta wad caata un baad diyaar baad leedahay noosixun baad leedahay jaa waxyu un ku weeyay dabadeed waxaad arkaysaa farxadii kugu sugnayd inaad hal mar jabto oo aan naxdo dabadeed wixii iska dhaafto eeg maska suu socdo suu joogan uu ku siinaya dabadeed sunta waa lagu cararaya heer waxa gaaraysa isbitaal dalka wax laga qabanay dibadda lagu laayo dadka nooca kale inaad ka fogaato markaad faraxsan tahay tiraado yaan u taga markaad naxsan tahay laba inaad tiraado niyo yaan la tashtaa maanta uu murugeysani dadka ceenka ay waxa wanaagsan inaad barato oo aad ka fogaato kii wax ku dhimay iyo kii aan wax ku dhimin nooca kale ugu dambeeyay waxa weeyaan una rasuulka sallallahu alayhi wasallam inuu nagala dardaarmay inaan la saaxiibna ku xirana nooca shinida waxaan ognahay waliga ma aragtay shinida kugu dhaxqaniinta meel suuli ah
dabadeed suulida waxay raadaysaa shinnida meelaha carfaya cosmeticska fiyooraha barafuunada iyo meelaha waxaad arkaysaa bulshada ama bini'aadamka ku jira aad arkaysaa nooc maanta inuu ku wado ku yidhi hebelow ina keen seminar baan ka qayb galaynaa hinabo ina keen shiiq weyn baa halkaa khudbad ku qabanaya hebelow ina keen maanta aqoonyahano soomaaliyeed baa halkaas kugu imaanaya dee maalinkaa uu ku wado wuxuu ku geynayaa meel aad u quruxsan oo cilmi iyo aqoon iyo wax aad uu ka faa'iidaysa balse ninkaa maalin qura inuu kusoo wado meel shaneemo ah meel munkara ka socdo meel xumaan ah meel qabyaaladi taalo ku geyn maayo sidaa darteed shinnidu waxay wareegtaa meelaha carfaya meelaha quruxsan adiguna waxaa wanaagsan in dadka nooca ka mid ah ee shinnida aad raacdo ee wareegaya meelaha wanaagsan siminaarada wanaagsan meesha aqoonta taalla meesha aqoonyahanada iskugu imaanayeen daadaad sidaa aad u kala barantaa dadka noocyadooda waxaan aaminsanahay inaad noqonayso qof guulaysanaya noloshiisa horumarka gaaraya barnaamijkeennii intaa ayuu nagu ogyahay